السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتين بالداودياش هذا قيمها يقدرين تمودن ميل البودافع عالم كشوفتان داوديال إذا رقم غل وناكسن وعن وحل سوق جار وقت كنضان وكله ودين سمرين جرني وروحي ديجان كي الدل كنجس سوق جاره وستة وسيدين كي منايا تلفزيون كعالم جي ديجان كسومالي ده حرونتي سمجلة الجيجار وركي واحد لسه عشرين دراني وفار عبد القادر بدر وركن ديجان كا هي الدل كيدين كهاي لو وجود دور كورونا وحى كمدا madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa xariga ka jaray adeega leylka 24 saac ee magaalada Dhagaxbuur oo dhan 132 kilovolt. qalfoofka Luusi ayaa soo gaaray xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga. warkan idinka hayno dalka wasaaradda nabadgelyada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo wax laga qabanayo rabshadihii ka dhacay deegaanada dalka. qodobadan iyo qodobo kale ay idinku daawan doontaan xilli tabinteena wareed. markale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo sarag maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faahfaahsan. madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa xariga ka jaray adeega leylka 24 saac ee magaalada Dhagaxbuur oo dhan 132 kilovolt. maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa faafahinta warkaasi noo eegaya. wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa u ambabaxay dhanka xarunta magaalada Dhagaxbuur iyadoo wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ay ku weerinayeen mas'uuliyiin heer deegaan ah ayaa wafdiga intii uu ku sii wajahnaa magaalada Dhagaxbuur waxa uu qaaday jidka dheer ee laamiga ah ee taga magaalada Dhagaxbuur iyadoo markaasi uu madaxweynuhu ku hakanayay magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dheerarsan wadada laamiga ah ee sida degmada Araarso, magaalo cad, Coballe, Higleley isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu soo baxeen soo dhaweynta madaxweynaha iyagoo markaasi lulayay calaamaan si ay u soo dhaweeyaan wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida. kadibna wafdigu waxa uu gaaray xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur oo iyagu halkaas ku sii sugayay wafdigan uu hogaaminayay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyadoo iyadoo dulucda socdaalka wafdiga madaxweynahana ay ahayd sidii xariga looga jari lahaa adeega leylka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur soo dhaweyn kadib waxa uu madaxweynuhu xariga ka jaray adeega leylka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur intaasi kadib waxa uu madaxweynuhu indhayn ku sameeyay qaybaha kala duwan ee xarunta adeega quwadda korontada maamulka magaalada Dhagaxbuur isla markaana ay sharaxaad ka siiyeen howlwadeennada ka howlgala wakaalada quwadda korontada dalka ee iyagu markaasi gacanta ku hayay hawshan kadibna waxa la gudagalay xafladii jarka adeega leylka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur mas'uuliyiin ka socotay heer deegaan mas'uuliyiinta gobolka kuwa maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii xafladan xariga jarka adeega leylka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur lagu daafuray heesta astaanta calanka dawladda deegaanka Soomaalida.
haddaba madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida oo ka hadlayay xafladan xarig jarka leyrka 24 saac ee magaalada Dhagaxbuur ayaa sidoo kalena sheegay in mashruuca leyrka triga magaalada Qabridahar muddo dhow xariga laga jari doono. marka ugu horeysa waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta isugu nimaadno munaasabad tan oo kala oo wax qabad muuqda oo inkastoo hawsha badankeedu naga horeeyay oo dawladda federaalku ay gacanta ku haysay badankeeda haddana curyaamin kale ay ku socotay in aan maaragtay maanta nasiib u yeelano intii u dambeysay 7 bilood u dambeysay inaan kaalintan ka qaadanay oo joogno aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan rajaynaynaa in munaasabad midan la mid muddo gaaban gudahood sidoo kale 2 bilood 3 bilood gudahood aan ku qaban doono magaalada Qabridahar oo iyaduna leyrka triga loo gelin doono. baahiyaha magaalada kuma eka waxaan rajaynaynaa arrimaha biyaha oo iyaguna aad u soo noqnoqonaya inaan muddo gaaban iyo wax ka qabanno haddii aan la yiraahdo magaalada. hawsha biyo la'aanta kale xilliga jilaalka lagu jiraa waxaa kaloo jirta in shacab fara badan oo magaalada ka maqnaa ay ku soo laabteen oo taasina ay keentay culays dheeraada. marka meeshan kaliya kama jirto baahida biyo la'aantu meelo badan bay runtii ka jirtaa. marka in si guud deegaanka wixii biyo la'aana looga shaqeeyo idinkuna dadkaas aad la mid tihiin in halkan magaalada wixii maaragtay la xidhiidha biyaha aan iyadana xoogga saarno yaan ballan qaadaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah in baahiyahaasi la soo afjari doono halkan iyo meelaha kaleba. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dib u dhaca lagaga bixi karo fikir caafimaad qaba. waxaan jecelahay in munaasabada uga faa'iideysto inaan ka hadlo arrimo ka baxsan barnaamijka maanta meeshan aan sugu nimid ah furitaanka xafladan. sida la socotaan deegaanka Soomaalidu wuxuu ku jiray xaalad adag muddo dheer dib u dhaca xuquuq la'aanta xorriyad la'aanta barakaca wax ilaahay noo qoray oo sida uun abayaasha inaan ka dhaxalo aynu ku dhambaata ma aha haba yaraatee inaan taa qabatin horta ma aha waa inaan aaminaa inaan ka bixi karno wixii oo dulli ahaa iyo wixii oo dhibaato ahaa ka bixi karno. taniya maagii anigu aan ardayga ka ahaa dhulkan ciyaalka noloshii anagu aan ku jirnay mid lamid bay ku jiraan maanta. cadceedda bay saas iga dhigaya qacanta mare saas u watan buug bay watan isaga dhigaya cadceedda taniya maalinka waxaasi wax ilaahay nagu xukumay ma aha waa wax laga bixi karo haddii dadku uu aamino inuu ka bixi karo weeyaan. dadka ka baxay ee kale ee meel kale Mareykan iyo Ingiriis u kicin halkan haddaad dhaafto har gaadho nolol kala gelaysa waad aragteen dadku suu nool yahay. waxaasi wax ilaahay naga xarintamay maaha qalbiga inaga dhintay maskaxda inaga dhimatay horta dadku inuu qalbiga maskaxda ka aamino
in meeshada aan ku noolahay aan ka dhigan karno meelaha hadda aan ku riyoonno inaan tagno inaan ka dhigan karno dhulkeena inaan aaminaa horta muhiim ta ugu horreysa dhulkan ka hawo fiican ka jawi fiican ka wanaagsan oo kale oo meel kale ku yaalla ma jiro dhulka meelaha aad aragteena daawataan kama fiicna dhulkan aminka aad joogtaan khayraadkeedii iyo dadkeedii iyo caqiidadeedii iyo tayadeedii waan leenahay ilaahay baa naga ka tiray iyo gumaysigii xoogga ahaa ina haystay oo keenay in dadku maskax ka dhimato oo qofku wuxuu ku fikraa ay noqoto inuu badbaado naftiisa keliya inay noqoto ee wax tadawur iyo wax horumar inuu sameeyo aan ku fikri jirin taa horta in dadku ay ogaadaan waa muhiim oo dhalinyaro iyo haween kulligeed aan u guntana haddii inteennii hore waaweyneyd hawshaasi inagu dhacday nasiib darradaasi in ubadkeenu taasoo kale aynu maaragtay gelin inaan uga faa'iidano intay noo dhiman cimrigeenna aan hawshaan ka shaqaynaa waa muhiim taas ugu horreysa taasna waxaa keena un dad rag go-aan gaadhan baa keena malaa'igo cid ka soo daata oo dadka bulshada ilaahay wuu saaciidaynayaa wixii xaqa laakiin malaa'igo maryo cadcad xidhan oo dugsiisu ka soo degayo naga saarayaa taas ma jirto waa dad innaga ina lamid ah inaan taa aamino weyaan maantadan isbedelada bulshooyinka kale ee nalamadkii ay haysteen waxa keena waa dad innaga ina lamid ah waxaa keliya meesha ka maqan isku kalsoonidii in wax aad qaban karto wax qabad la-aantu waxaa kow ka ah inaad aaminto anigu shaksi haddaan waxba ma qaban karo cilada weyn waa taa weyaan waa keligaa waa keligey labaan nahay afar baan nahay lama yidhaahdo wixii adigu aad qaban kartaa la bilaaba waxaas haddii adigu aad bilowdo insaan kale oo ku taageera lama waayiyo toddobarka aagiisa marka dulligii iyo dhibaatadii 27 sane u dambeysay dhacay iyo xansuuqyadii ka dhacay guud ahaan deegaanka gaar ahaanna 7 gobol ee sida gaarkaa loo tilmaamaysanayay waxay ahaayeen waxyaalo maskaxda caadiga aan aqbali karin oo marna in loo dulqaato ama loo ogolaado aan ahayn intii ku baraarugtay ee ka dagaalantay ee u dhimatay ilaahay u naxariiso intii ka badbaaday ee maanta nool ee nasiibka u heshay inay arkaan wixii oo dhammaaday waa inay aaminin waxaas inuu saa ku tegey waa inay ogaadaan in maantana looga baahan yahay hawl iyo dadaal si waxaasoo kale aan dib noogu soo noqonin taasaa muhiima inay dadku ogaadaan waxyaalihii intaas ay socdeen boqolaal aynu garanayno inagu intaan halkan taagan baa dhimatay oo ogtihiin qaar baa habeenkii lala bixi jiray oo la waayi jiray qaar baa carruurhoodii kala yaaceen waxaas wax caadi oo bini'aadam ku dhaco maaha meel wax ka jira maaha wax inaga inagu gaar ahaa buu ahaa waxa inagu gaarkii inaan aqbalnaa waa khalad sax ma aha shalayna sax ma ahayn maantaa sax ma noqonayo bulshadu markaa waa inay ogaato inay xaqeeda u istaagto inay sharaf tahay kolleyba waad dhimanaysaa intaas oo jeer oo intaas dad ay dhimanayeen kuwa aan intaas dadka lagu eedeynaya ahayn baa dhimanayay maalin walba la aasayay kanaaca ku dhufatay kolera qaaday lalahaa u dhimanayo noloshu waxaa weeye inaad sharaf ku noolaato sharaftana waxaa ugu horreysa inaad bilaa cabsi ku noolaato ad ikhtiyaar ku noolaato dhulkaaga meeshii ilaahay kugu abuuray inaad ikhtiyaar ku joogto oo cidaad ka haybaysato inaad ka cabsata ayna jirin sidaa markaan leenahay ma aha inaan dhaleecaynayno dadkii dhibaatooyinkii jiray u habraday ama dhibaatadii oo qof walbo bini'aadam ee xamid buu leeyahay cabsi fara badan iyo dhibaato fara badan iyo naftaada inay badbaadiso kolo badan oo ay munaasab tahay waajib tahay baa jira marka ma dhaleecaynayno cidna ciddii ka qayb qaadatay ee shacabka dhibaataysay ee wixii dhacayay garab booday 27 sane u dambeysay kuwaas ma cafiyeyno taariikhdooda ma cafiyeyso haba yaraatee laakiin ciddii duruufta ku keentay in kaalintii ay ku lahayd ayna ka qayb qaadan cidna aan dilin dhibaatana geysanin hase ahaatee hadal xun ka dhacay fikir xun ka dhacay jujub ha ahaado quus ay gaadheen oo ah sidan baa lagu dhimanayaa maxaad yeeshaa nafta ku baaysa ha ahaato kuwaas waxaa weeye waa walaaladana waan soo dhaweynaynaa waxaan gacantan qabsanaynaa waxaan leenahay maanta fursad baa idiin furan ummaddiina aad ugu helaysaan dadkiina aad ugu helaysaan xaqa aad ugu helaysaan mudane mustafa maxamed cumar madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida ayaa bulshada ku booriyey inay ku dadaalaan adkeynta midnimada raadinta xaqa iyo dadku inay xaqooda helaan wax ka duwan maaha waa la wahsan karaa waa la fudaysan karaa markaan kursiga ku fadhiistay saan ugu fadhi lahaa aan raadiyo wadadeedu caqli fara badan uma baahna caqli aad u fara badan uma baahna kursiga inaad xajirto waxaa caqli fara badan u baahan iyo adkaysi fara badan inaad xaqa iyo karaamada iyo sharafta bulshada leedahay difaacdo ood go'aansato inaad naftaada iyo waxa kale inaad haysaba aad u hurto taasaa maskax u baahan ee uma baahna inaad meesha ku fadhigeedo
dhalacaynta iyo dagaalka iyo dhibaatada iyo aflagaadada iyo waxoo dhanna iska daa qof bini aadam oo annaga oo kale aan waxba ahayn rasuulkii sallallahu alayhi wasallam baa ka badbaadi waayey ma garanaysaa qofku xaqa u istaagay marka waxyaalo fara badan oo dhacaya iyo dhibaatooyin fara badan oo dhacayana dulqaadkeeda in lala yimaado waa muhiim waxaan ku bishaareeyaa inaan wadadii xaqa ku taagannahay wadada xaqan ku taagannahay inay guuleysanayso inaan mar wax shakiina gaga jirin haba yaraatee maantana aan taagannahay waddo wanaagsan oo guuleed aan taagannahay wax kasta oo dhaca iyo wax kasta oo culays oo soo baxaba inaan maanta taagannahay meel wanaagsan oon aaminsanahay ummadannada haddii waddadii hore ee ahayd xorriyad la'aanta iyo tacaddiga iyo dhibaatada iyo quursiga aan ka saarno waddadii labaad ee ahayd inay horumar iyo nolol ay helaan inaan waddada bilowday aan aaminsanahay waxaan aad iyo aad shacabka uga codsanayaa inay taas taageeraan iyo dawad istaagaan inay midnimada ku dadaalaan inta xun ee masiirka ummadda halista ku ah midnimadooda looma baahna uma baahni mar badan in laisku khaldo midnimada kelmadda maaha midnimada waxaa weeye intii ogol in ummaddani wax noqoto oo qoomiyadaha kale Ethiopia wax la qaybsato ummadaha kale ee Ethiopia sida yihiin inaan noqono inta ogol weeyaan waxay iyagu helaan inaan helo miiska inaan fadhiisano tira 8 milyan aan ka yarayn baan nahay dadka ugu geographic dheer baan nahay deegaan ahaan gobolka dhinaca khayraadka gobolka ugu khayraad badan Ethiopia nahay inaan wax noo qalmin aan qaadanin oo haddii Ethiopia waxay qaybsanayso anagu miiska intaan fadhiisano wax anaga aan qaadano inaan fikirka shacabkeena ku abaabulo xaqa ee wanaaga inaan dadkeena farno si kasto oo dhacdan inaan si nabadgelyo ah ku raadsano oo dagaal iyo qaylo iyo buuq iyo jabhadeen iyo waxa loo baahnayn aynaan gelin haba yaraatee taasaan wax maaragtay dhulka oo la kala leeyahayna ma jiro haba yaraatee qofkii gurigiisa joogay ilmihiisa iskuul u barayay ee caafimaadka barayay ee maaragtay shacabkiisa u hadlayay shirarka intuu soo fadhiisto iyo kii kale ee wadda kale ku raadiyay labadu waa muwaadiniin waddanka xaq u leh ninna muwaadin koowaad ma noqonayo midna muwaadin labaad ma noqonayo cid ummadda wax tartayna ilaahay khaaliqa og cid wax tartayna ummadda oo lagu liibaanayna marka inaan saa ula soconno shacabkeenna meel walba ay joogaan aan maaragtay wixii hore dhacay iska cafiyo waxaa la cafiyayaa qofku marka inuu dembi geysto uu ogaado laakiin qof weli dagaalamaya oo waddadii khaldaneeda qodaada ee shalay dadka uu ku hayay maanta inuu keena rabaa dee cafis heerkeed maba gaadhin meel lagu cafiyo weli dagaalka laguma kala adkaanba kolka la kala adkaado qofka yaa la cafiyaa oo layidhaha waan kala adkaaday waan ku cafiyay or alaha maaragtay xagga la yidhahdo marka waxaan aad iyo aad maaragtay idinku bishaaraynayaa inaan maanta meel fiican taagannahay waxaan u baahannahay inaan is dhegaysano inaan is maqalno inaan isu dulqaadanno inaan meel uga soo wada istaagno dadka ummadda ma aha macnaheedu taa in fikirka kala duwan yahay berri waxaad maqli kartaan marka laabtaa waxay is haystaan koox hebel bay is haystaan iyo waad maqli kartaan dhib ma laha ishaysigu maalin walba waa nolosha siyaasaddu joogtadu ka mid yahay maalin walba xun baa taagnaan laakiin masiirka ummaddu oo ah dadkan inay yihiin dad Soomaaliyeed dad u baahan maaragtay inay si xor u tashadaan si madax bannaan danahooda u sheegtaan wixii khayraadkooda ah tala ku yeeshaan sida loo maamulayo tala ku yeeshaan ayna noqonin had iyo habeen in la yidhaha hebel baa saa yidhi iyo kana saa yidhi iyagu ay noqdaan kuwii talada goosanaya arrintaas inay meel looga go'naato ayaa la rabaa u baahan taana waxaa lagu gaari karaa haddii midnimo Soomaaliyeed aan ka shaqayno midnimo Soomaaliyeed haddaan laga shaqayn midnimo qabiil lagama shaqayn karo reer hebel inoo ah wax la yidhaahdo waxba kuma noqon karno haba yaraatee waxaa wax la qaybsanayna waa 100 milyan 8 milyan ama inta garanaysaa insha Allah marka talko ku dhaco way nooga badan doontaa 8 milyan ama wixii ka badan ee Soomaalidii markay midowdo waxa u dhaxeeya farqooda ay iska banaanka iska dhigaan marka aynu masiirkeena ka dhabayn karno dadyo kala diin ah oo aan waxay wadaagaan jirin baa maanta mid ah oo 10 jeer naga badan inaga marka haddaan midayn ka weyno inta Soomaalida isu wada eeg meel walba oo tago hadda intan hor joogto ilaa ma taagna haddaad qabdida har tagto haddaad gooday tagto haddaad doola cadda tagto haddaad shimile city tagto haddaad gaashaamo tagto haddaad wardheer tagto haddaad email tagto dadka sidan waxaad ku kala garanaysaa ma jirto geographigan baa kala bedelan waa isku labis waa isku dhaqan waa isku diin waa isku himilo waxay rabaan waa isku mid walba wuxuu rabaa inuu xorna ahaado deegaankiisana cabsi una dareemin habeenkii markuu seexanayo ammaanka u seexdo caruurtiisa iyo ubadkiisa iskuul u tagaan caafimaad u helaan intaan buu rabaa qof wamaan ku helaa nolosha adduunka la raadiyaana iyo xorriyadda la raadiyana waa intaasun haba yaraatee xorriyaddu calaa qaadatood meel ka saarto ood qori ku ilaalisa maaha South Sudan baa xorriyay maxay hayaan maanta South Sudan maxay hayaan xorriyadda
lama nin baa isku haysto maalin ma xaggaas ubadka loo sii rara ma xagga loo soo raraa xorriyaddu waa inaad nolosha aasaasiga haysato gaajo ka xorowdo jahli ka xorowdo nolol fiican hesho weeyaan arrintaasna waxay u baahan tahay samir iyo dulqaad ayay u baahan tahay waxaan mar kale aan maaragtay ku faraxsanahay in maanta idinla joogo waxaan aad iyo aad idinku ammaanayaa in meel walba aad joogtaan aad xaqa taageerteen badankiinu aad xaqa taageerteen waad u taagnaydeen intii aan taageerin naga dhex baxdayna kolka ay gartaan inay khalad sameeyeen waxay ku jireen khalad yihiin ummadda ilaahayna u toobad keenaan ummaddana u toobad keenaan waxaan u adeeyin iyo waxaan xabsi ugu gurnaam oo macna noo taraysa haba yaraatee ma jirto haba yaraatee laakiin waa inay ogaadaan wixii shalay ay u hiilinayeen garab boodayeen inuu khalad ahaa in gabdhaha la kufsado in ragga odayaasha la garaaco in ummadda la bahdilo in qofka fikir uuna rabin lagaga hadalshiiyo waxaas inay xaaraan tahay inay ogaadaan shalay duruuftii ku kala ftadeen maanta joogin ay ka toobad keenaan ugu baaqaynaa waad mahadsantihiin shacabka sharafta Dhagaxbuur wali salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowladda deegaanka Soomaalida ku-xigeenka shirkadda quwadda korontada dalka laantayda deegaanka Soomaalida iyo maayarka maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaan u mahadcelinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in mashruucan oo hubo haddii aan dadaal badan laga gelinin inuu jiitami lahaa cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan u mahadceliyo heer maamul magaalo heer shacab heer dowlad deegaan iyo heer madaxweyne waxaan jeclahay inaan si gaara u xuso aniga iyo maxamed yuusuf rooble mashruucan markii aan ka shaqaynaynay dadkii nagala shaqaynayay cagajiid aan ka dareennay kadib waxaan u tagnay madaxweynaha mudane mustafa maxamed cumar wuxuu si toosa ula hadlay ninka ugu sarreeya xafiiskan laga maamulo korontada si toosa isagoo weliba mashquulsan oo howlo kale ku jira teleefonku kula hadlay halkaasayna hawsha ka dhaqaaqday si gaaraan isagoo ugu mahadcelinayaa Dhagaxbuur maanta leyrkii wuu u furan yahay laakiin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo kow ma joogno marka la eego korontada Ethiopia inta ay gaadhsiisan tahay magaalooyinka miyiga meel kasta deegaanka Soomaalida oo ogtihiin muhiimadda uu leeyahay Ethiopia boqolkiiba hal ma dhama weli boqolkiiba hal marka iyadoo dhinac farxad noo tahay dhinac kale waa inaan ku baraarugsanaanaa shaqo badan inay noo dhiman tahay aad baad u mahadsantihiin allah inoo wada guuleeyo ይህ ፕሮጀክት ከ2007 ጀምሮ በ4 ዓመታት በመስተዳድርና በክልሉ መስተዳድርና በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት mashruucan adeega quwadda korontada laga soo bilaabo sanadkii 2007 ayaa waxay si wada jira xukuumadda deegaanka iyo dawladda federaalkuba ay hawshiisa wadeen 4 sano ee la soo dhaafay taasi oo maantana lagu guuleystay heerkana la soo gaarsiiyay waxaana adeegani leyrka ee 24 saac noqon doona mid magaalada Dhagaxbuur iyo nawaaxigeedaba iyo meelaha masaafo ilaa gaaraysa 120 kilomitir ay ka faa'iideysan doonaan waxaana leeyahay baga ayaad ku faraxdeen baga ayaan ku wada faraxnay waxaa maanta farxad weyn inoo ah in mashruucii leedgelinta ee la bilaabay 2007 ee muddada dheer soo jiitamayay in maanta aynu u fadhino xadhig jarkiisii waxaa mahad iskale ilaaha suurto geliyey inay maanta muddo dheer oo mugdiga kadib ay Dhagaxbuur leyd hesho anigoo ku hadlaya magaca mujtamaca ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaan mar labaad leeyahay xukuumadda aad baan ugu mahadcelinaynaa shacabkeedu uu idin garab taagan yahay heliyo hoob uu idin garab taagan yahay dankoodana qaar ka mid ah xildhibaanada heer federaal odayaal dhaqameedka culimaawidiinka iyo haweenka magaalada Dhagaxbuur oo ka hadlay xafladani xarig jarka leyrka 24 saac ayaa cadeeyay inay u tahay waa cusub oo u bariyay bulshada magaalada Dhagaxbuur maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa baabaynta warkaasi noo eegaya
dhankooda intii ay socotay xafladani xarika jarka adeega leyrka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur waxaa madashii ay ka socotay munaasabadani hadallo ka soo jeediyay qaar ka mid ah xildhibaano heer federaal ah iyo sidoo kale odayaal dhaqameedka maamulka magaalada Dhagaxbuur iyo hooyooyinka iyadoo halkaas ay ka xuseen siday ugu faraxsan yihiin adeega leyrka 24 saac ay heleen tilmaameen in markaas ay sida ugu habboon uga faa'iideysan doonaan maadaama ay baahi weyn u qabeen adeegan iyadoo ay geesta kala xuseen in loo baahan yahay marka hore in loo mahadceliyo eebe iyo xukuumadda dawladdeegaanka Soomaalida ee iyadu markaas hirgelisay mashruuca leyrkan gabagabadiina ay halkaas ka soo jeediyeen inay jiraan dad xun iyo dad wanaagsan balse waxa wanaagsan ay tahay dadnimada ayna soo jeediyeen in la iska qabto qof kasta oo markaas isagu xumaan wada alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa inna ilaaha keena wa inna mahadnaqnaa dalka madaxweyne maanta waxaad la kulantay farxad qaaliya Dhagaxbuur oo madoobayd 9 bilood iyadoo bilaal leedahay baanu joognay oo dadku cid ay la hadlaan lahaayeen mishiibaan goday uga soo qaaday markaan keenay dawladdii hore ayaa timid aqalka martida ku qayileen marka habeenkii oo dhan yiraahdaan leedka la baqtiinin oo qayilaynaa aroortii leedkii biyo iyo saliidii buu isku daray haddana ku kalaan keenay baraas baa ku baxay kan iminka baxayay jiingaanu ka keenay marka hawshu ma yara laakiin ilaahay mahadi maanta waynu ka bogsana wixii oo dhan waxa loo idinka baahan yahay leedka laga faa'iideysto qurba joogi maanta uu maqlayaa kii warshad keenaya kii warshada biyaha macaaneenaysa keenaya kii warshad furin keenaya warshadaha la idinka baahan inaad leedka ka faa'iideysataan inaad saacad gurigun ku ekaataan looma baahna run ahaantii innagu waxaan nahay xildhibaano federaalka ugu yaraan ilaa 7 xubnood baan ku joognaa halkan nasiib wanaag waxay noqotay inaan ka soo qayb galno maanta annagoo wakiilka dawladda federaalka projectigana uu fulinayay dawladda federaalka waad ogtihiin run ahaantii baahi badan baa loo qabay nasiib wanaagna maanta waqti cusub isbeddel cusub maamul cusub dawlad cusub Ethiopia deegaanka dhanka wada dhacday baad maanta ku hesheen leer cusub 82 sano jira muddo badan ma dhulka soo soo kolan xero waxa iyo kolan kitaab aqri jiray iyo kolan kolba si aan ahaaba wax badan oo garanayna jiro annagu tacliim ku badan waqtigu ku bari kala jira way fiicneen maanta inaan iyaro sheeko oo taariikhda dib ugu noqon waxaasi waqti uma hayno laba mas'ala ku soo koobi hadalkaygi midda koobaad waxa weeye madaxweyne maqal Mustafa ku talagal Mustafa haddaad wanaag inaad qabato damacdo Allah ku kaalmeeyo waad ku dhaqaaqday dadku inuu meel fiican wala mari haw malayn waxa adduunka jooga waa laba qaybood qayb waa wanaag qaybna waa xumaan bani aadamkuna labadaas u qaybsan yahay sidiisaba ninkii wanaag sameeyaa dakan u gali oo uu dakan ka galay kii shirka doonaya dhibka kii xumaan sameeyana dakan u galay oo uu dakan ka galay kii khayrka doonay kollayba mududin la noqon haw maleen nimankiina kamaleedka bidixda iga fadhiyo haddaad wax wanaajisaan waad eedaysantii haddaad wax biisaanna waad eedaysantii laakiin dadnimadu waxa weeye dadka dhulka jooga inuu kala kaco oo kii shirka doonaya markuu shar la'aanta inuu ku eedeeyo khayrka kii khayr doonaya yidhaa war been baad sheegay shalna saasay maanta la siday taasaad idinku ku talagelaysaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin rafaad badan baa loo soo maray rafaad badan waxaa ka mid ahoo kale biyihii ilaahay Dhagaxbuur uu ka sii qaaday waxay tahay waan garan waay cuquubo baan u malay waxyaalihii la sameynayay ee arlada lagu sameeyey cuquubadoodii baan u malayn biyahana waa la sheegay madaxweynuhu uu sheegay kolka labada xaalo Dhagaxbuur dhibaatada ugu weyn yay tahay madaxweynaheennii oo beledkeennii jooga beledkeennan ku dhasho carruurteennii ka mid ah ilaahay baa laga helaa taasoo kale nicmada sidaas ilaahay baa laga helaa madaxweynaheena garab iyo gaashaan labadaba aanu ahano labadaba leedkii Dhagaxbuur la inoo shido 24 saacadood taariikh cimri baa inoogu simay ilaahay baa inoogu simay inaynu soo gaadhno inaynu maanta leedkii 24 saacadood ahaa aynu musafirkeena xarigii ka jiro asagana nasiibkiisa soo gaarsiiyay innaka ilaahay inuu soo gaarsiiyo mahadaas kale ruux dadilay lama saamaxayo diintuna ma saamaxayso ma ku raacsantiin waan ku raacsanahay taasaan ku taakulayaa waxa lama saamaxayo
diintuna ma saamaxayso sharciguna ma saamaxayo ani waan hadalkaygii sii dheerayn war waxaan leeyahay madaxweynaheenni garab siiyo oo aan la shaqayno waxaynu naqaanaa kolkaynu halkan ka tagno tantadi waa wada taqaanaa tirignishid iyo nintooshuusadada tantadi waa iswada taqaanaa waa dhagax buur waryayna hadhadline garab ma siinaa dawladdeena garab ma siinaa dadka iyo waxaa labada meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan ku cashareemaaba dadka iyo waxaa labada meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan ku cashareemaaba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ayaa bogaadiyay helidda adeega leydhka 24 saac. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa baabaynta warkaasi mar kale inoo eegaya. dhankoodana markii ay xafladan soo dhamaatay ayaa waxa aan waraysi la yeelnay qaybaha kala duwan ee bulshadii markaasi ka soo qayb gashay xafladii xarika jarka adeega leydhka 24 saac ee maamulka magaalada Dhagaxbuur iyadoo ay tilmaameen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur inay baahi weyn u qabeen adeega leydhka isla markaana ay u ahayd waqtiyadii hore mugdi balse maanta ay u tahay iftiin waxayna arintan uga mahadceliyeen xukuumadda dawladdeegaanka Soomaalida oo iyadu dadaal badan gelisay sidii markaasi loo dadajin lahaa hawsha mashruuca leydhkan iyadoo mashruuca leydhkan la bilaabay sanadku markuu ahaa 2007 tirsiga taariikhda dalka Itoobiya isla markaana muddo 2 sano uu taagnaa hawsha mashruuca leydhkan balse kadib markii ay bulshada ku dhaqan maamulka magaalada Dhagaxbuur ay la kulmeen madaxweynaha dawladdeegaanka Soomaalida oo socdaal ku tagay halkaasi ayaa waxay ka codsadeen sidii markaasi loogu dhameystiri lahaa adeega mashruuca leydhka iyadoo markaasi xukuumaddu ay kala hadashay hawshan laamihii ay khuseysay ee sidii markaasi hawshani loo dhameystiri lahaa waxaa mahad iskale ilaahayna abuuray madaxweynahanaga sharafta leh Mustafa Maxamed Cumar aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waan u ducaynaynaa khayr Allah siiyo qolada noo samaysay dawladayada dadkoo dhan aad bay maanta farxadayadu u fiican tahay waa sida maxaa dhibaatada aad bay u badnay moobilka oo charge habeen walba aad lacag ka bixiso tooshashaan fursanno wax kale oo ku qabsana daabe toosh baan fursanayni aad iyo aad bay dhibaatada leydhka noogu badnayd maanta aad baan u faraxsanahay boqolkiiba baan u faraxsanahay leydhkani maanta magaaladaasi 24 saac mugdi bay ahayd waxaanu moobilada ku chargeysataanu weynay waxaanu shidan jiray shamacyada dhibaataan haysatay xabadda moobil 10 riyaal noogu chargeyn jiray dhibaato aad iyo aad u ballaaran baa naga haysatay oo na soo martay alxamdulillah maanta farxad baa ka yaabi dadka ku nool ismaamulka magaalada Dhagaxbuur inay maanta wada qarxaanba farxad Allah naxariista badan ee nagu simay maanta waa maalin qaaliya waa maalin aan la koobi karin qaalisanideeda waa maalin aad u faraxsanahay waa maalin aan maalmaha la sinayn faynus baanu shidan jirnay laba shaqafagaas aanu ku shubanno marka caruurta yareer ee ardayda kolka wax baranayso waxa loo shidi jiray faynuska marka muxuu ilmuhu ku akhrisan faynus hadda waa xilli kasta ilmuhu wax baran waa duu daro intuu seexdo soo tooso akhrisanaya suxuurta agteeda dhiba aad baanu ugu faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa hambalya baanu leenahay xukuumadana sharafta badan ee barakaysan ee maxaan ku dhahdaa ballaaran cidhiidhigi naga saartay horumarka badan oo wada leydhku horumarka u yahay aad baan ugu faraxsanahay faa'iido leydhku leeyahay fuliyo aad badan buu noo leeyahay kow waayay leydhku wuxuu noo yahay waxaan shidanay faynuuso motorada naga xumaanayo dabuub iyo hawaasana naga soo qaaday motorada
4 saac noo shidnaanaya maanta laakiin dhagax buur haddaad magaalada dhex tagtid leer 24 saac baa shidan gabadha xalay la socosay waxay ugu tirintay saaq saad soo la socosay weli fiidoogii baa ii shidan ayay tiri waa farxad aada leerkan waa baawar badan buu leeyahay dadka maalgashayaasha ee deegaanka u dhashay waxaan leeyahay ka shaqeystaan haddaan ka shaqey waxaan uga faa'iideysan karaa warshadaha kale hadda haddaan warshado ku isticmaali weyna halkan leerka dib uu inoo noqonayaa baawurkiisi marka dhammaan deegaanka maalgashayaasha jooga waxaan leeyahay gobolka dhagax buur u dhashay gaar ahaan maamulka magaalada dhagax buur inay warshado keensadaan nooca kasta ha noqdaan hadday tahay tibiya hadday tahay tii sonkorta waxaan leenahay kaalaya waddankiinii leerkii baa soo gaaray ka shaqeeya ayaan leenahay haddaba baaxadda leydhkan ayaa waxa ay tahay 132 kilovolt isla markaana deeqda lacagta ku baxda leydhkan laga helay dawladda federaalka iyo deyn laga helay bangiga carabta lacagtaasna ay gaarayso 900 oo milyan oo bir haddaba xafladan oo ahayd mid markaasi xadhigga lagaga jareeyay adeega leydhka 24 saac ee maamulka magaalada dhagax buur ayaa waxa isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan maamulka magaalada dhagax buur iyadoo markaasi xafladan ay xadhigga ka jaray madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar isla markaana ay bogaadiyeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada dhagax buur xadhigga jarka leydhkan oo ay baahi weyn u qabeen hadda ka hor maadaama ay magaalada leeylaan ahayd ayaa waqti xaadirkan waxa ay arintani soo afjari doontaa baahidii dhanka leydhka hadda ka hor ka jirtay maamulka magaalada dhagax buur maxamed cabdiraxmaan gaata telefishinka caalamiga Star TV magaalada dhagax buur wafdigii ballan ee hogaaminaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa dib ugu soo laabtay xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadib markii ay xadhigga ka soo jireen leerka 24 saac ee magaalada dhagax buur ay yeelatay qalfoofka Lucy ayaa soo gaaray xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga xasan maxamed ayaa faafaynta warkaasi noo eegaya qalfoofka Lucy ayaa waxaa la sheegay inay jirto 3.2 milyan oo sano iyadoona 44 sano ka hor laga helay deegaanka hadar oo u dhow magaalada Awaash ee dawladda deegaanka Canfarta socdaalkan ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda nabadda iyo telefishinka qaranka Itoobiya waxaana halku dhiga socdaalkani uu yahay Lucy waa nabadda iyo isjacaylka haddaba Lucy ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Garaadwiilwaal ee magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida soo dhaweynta Lucy ayaa waxaa ka qayb qaatay qaar ka mid ah golaha kaabineetka dawladda deegaanka Soomaalida oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax waxaa sidoo kale ka qayb qaatay soo dhaweynta Lucy kooxaha baanbayda dhaqanka iyo mas'uuliyiin kale mas'uuliyiintii waday ayaa waxaa loo soo gudbiyay qolka nasashada garoonka diyaaradaha Garaadwiilwaal ee magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida haddaba madaxweyne ku-xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax ayaa waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay Lucy leedahay maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaanu magaalada madaxda dawladda deegaanka Soomaalida Jigjiga ku soo dhaweyno Lucy oo muujinaysa midnimada shucuubta Itoobiya سلوا دكتورين لوسي وحيجرتها 3.2 مليون أو سنة إن كبدن لوسي waxay ka mid tahay khayraadka muhiimka ee dalkeenu haysto gaar ahaan dhinaca dalxiiska marka la fiiriyo saas darteed waxa run ahaantii fursad weyn inoo ah in shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeedu ay fursad u helaan inay arkaan booqdaan Lucy taasoo hadda ka hor macnaha loo baahnaa in la adsaaba la aado in la soo booqdo kolka run ahaantii fursadan waa fursad qaali ah dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda waxaan kula dardaarmayaa inay soo booqdaan oo taariikhda Itoobiya wax ka ogaadaan taariikhda Lucy wax ka ogaadaan isla markaana maadaama barnaamijkan la xidhiidhiyay dhinaca nabadgelyada guud ahaan midnimada shucuubta iyo qoomiyadaha kala duwan ee dalkeena si loo xaqiijiyo wada noolaanshaha shucuubta kala duwan ee dalkeena si loo xaqiijiyo Lucy maadaama astaan u tahay nabadgelyada dhinaca nabadeynta iyo xoojinta walaaltinimada shucuubtana maadaama kaalin muhiim ah barnaamijkan ka qaadanayo in cid walba ay ka qayb qaadato ayaan kula dardaarmayaa sidoo kale barnaamijyo kala duwan oo la xidhiidha barnaamijkan ayaa ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga dood cilmiyeedyo kala duwan oo dhinaca nabadgelyada dhinaca dalxiiska iyo khayraadka dalxiiska aanu haysano
dhinaca walaaltinimada iyo nabadgelyada dood cilmiyeedyo ku saabsan ayaa lagu soo bandhigi doonaa maalmaha soo socda saas darteed dhammaan shaqaalaha dawladda ardayda kulliyadaha iyo dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga inay qarindhoodaan ay soo booqdaan barnaamijyada iyo dood cilmiyeedana ka qayb qaataan baan ugu baaqaya aad iyo aad baad mahadsan intaa kadib waxaa saxaafadda la hadlay Professor Masfin Araye oo ah xubin ka tirsan guddiga baaritaan ee lafaha Lucy ከ23 ዓመት በኋላ ነው ወደ ሶማሌ ክልል ጅጅጋ የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። የበለጠ ደግሞ ደስ ያለን ምንድነው ሉሲን ይዘን ወደ ሶማሌ ክልል መምጣታችን ነው። 23 sano kadib ayaa nimid magaalada Jigjiga ee dawlad deegaanka Soomaalida aad ayaan ugu faraxsanahay. farxadda kale ee weyn ayaa waxay tahay in lagu sii keenay dawlad deegaanka Soomaalida sidaad ogsoon tihiin gacanka biyaha Afrika waxay isku xidhan yihiin Falastiin ilaa Madagascar halkaas oo ka soo unkamo xaaladana dawlad deegaanka Soomaalida waa mid aad ugu dhow sidaa darteed helitaanka Lucy waa misalka ku haya xaaladaas oo kale maadaama meel sidaas oo kale ah faraceeda laga helay marka maadaama Lucy ay tahay mid xaaladeedu ay sidaasi tahay oo ficeedu yahay mid ka soo jeeda bilowga aadamaha waa inaynu dhammaanteen ka qayb qaadanaa arrintaasi maadaama oo ay tahay astaanteena oo aynu ku koobnayn dawlad deegaanka Cafarta Soomaalida iyo dawlad deegaanada kale oo ay tahay mid muujinaysa dhammaanba isjacaylka qaaradani Afrika iyo guud ahaanba caalamka oo dhan qalfoofka Lucy ayaa intaa kadib loo soo gudbiyay magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida iyadoona inta ay ku sugan tahay magaalada Jigjiga la qaban doono aqoon isweydaarsi iyo dood cilmiyeedyo kala duwan beelaha walaalaha ah ee Soomaaliyeed ee wadadega degmooyinka Tulli Guuleed iyo Jinacsani ayuu heshiis nabadeed ku dhaxmaray goobta taariikhiga ah ee Maraar fafaynta warkaas waxa inoo eegay Cabdikhadir Ismaaciil heshiiska nabadeed ee dhaxmaray labada beelood ee walaalaha ah ee Soomaalida ee wadadega degmada Tulli iyo waliba Jinacsani ee muddada colaadda siyaasadeed dhaxtaalay ayaa noqonaya mid taariikhi kaas oo dib u soo celinaya qiyamkii wada noolaasho wada dhalasho ee salka u ahaa gacal iyo xigaal kala guursada isla markaasna wadaaga habnololeed mid ah dhaqan iyo dhiiga ayaa waxa sanadihii la soo dhaafay nidaamyadii guud ahaan dalka deegaanada ka jiray oo ka dhex abuuray colaad siyaasadeed oo abuuraysa isku dhacyo labada dhinac hase yeeshee heshiiska nabadeed ee dhaxmaray labada dhinac ayaa furaya cutubka nabadeed isla markaasna dib u soo nooleynaya xiriirkii walaaltinimo ee ahaa lafiiludka heshiiska nabadeed ee ka dhashay labada dhinac ayaa waxa micno gaar ah u yeelayay wuxuu ka dhacay goob taariikhi oo lagu magacaabo Maraar oo ah goobaha beelahaas ay u fadhiistaan marka ay dejinayaan xanaan maamuleedka dhaqamiga maantana uu ka dhacay heshiiska nabadda isla markaasna soo gunaanaday colaadii iyagu nidaamyadii kala duwanaa iyo siyaasadii ay ka dhex abuureen beelahaasi waxaana heshiiskan taariikhiga iyagu ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota deegaanka Oromada Soomaalida culimadiinka waxgaradka suldaanada dhalinyarada ciidamada difaaca qaranka ee Koonfurbar Itoobiya waxaana halkaasi hadallo murti leh oo calool xaarasho iyo is-afis jacayl ah ka soo jeediyay odayaasha labada dhinac markaan kaliya jaarta dib dhex yimaado halkana la yimaada halkii uu sheekhu fariista waa halkan halkii loogu duceeyay sheekhu waa halkan halkaa qolkaan yimaado dalaayada way naga hadhaa way naga dhamaataa taa dabadeed dura yar baa horta neelay dawladda dura yar baa helay labada kilal dura yar baa helay labada gobol dura yar baa helay annaga odayaana dura yar baa neelay odayga saantu markay bukoodaan carruurta maxaad ka malaynta cudurro waxa u yar durayga u yar duraygii neelay horta ilaahay maanta macal dawladda macal annaga inuu ilaahay naga caafiyo horta naloo duceeyo oo ilaahay baabkaa naga raaciyo geriya jaarsa nalama oran jiri waagi hore mid qudaataan ahay xeer baan lahay dhaqan baan lahay waan isdhex gallaa waxaa jira nin geriya oonan geriga oqoon jaarso maahin waxaa jira nin jaarsa oonan jaarso oqoon geriga mooyaane xeer baan horta lahay xeerka yagaasoo ah intaa xeerkan dib ugu yar noqonaya xeerka yagu 12 bilood baa la fadhiyey 12 bilood la fadhiyey afartii bilood ee u horeysay waa la ducaynayey afartii bilood ee ku xigtayna xeerkaa la qodobaynayey afartii bilood ee dambana ninka ka hor yimaadaa la habaarayay xeerkii wuxuu ahaa xeerka jaarso ninkii badhaasa midda bulatidii garaadaaday irbi waan lahay beriga hore waxaan odhan jiray ninkaa ka hor yimaada ma irbidiiba waan ka yaaci jiray irbiga dhibkan yareedna helay haddaba xeerka iyadugan yar burburin oon ka yar baxnay
waxaan leeyahay anugu maanta garaya jaarsa waan joognaa waxa dhibkaa ina gaadhay innagaa isgaarsiinay innagu hadday maanta sidaa inaan yeelin dee inama gaadhayn anugu waxaan leeyahay babarta xeerkeenni intaan ku noqonno ha ducaysan waa run inanka yaraalkufaadlaye ee garaya jaarsa annagu lama yaabo waa runtiidey mid quraataanay mid kalaa tayanay irbilin la aasay een maaragtay shan boqol jirin wareerbilan mal qaadi maayo waa laga caray jiray tiibaan bartay ka usagna anu waxaan leeyahay han ducaysan oo dib haddaan garaya jaarsanahay dib hanu ducaysano han minbarino halkii aan ku minbariya jiray ee aqalkii baraacsan midda ahaa han tagno halkaan han ku ducaysano balaayayna heli mayso 24-keenii oday ee daarta iyo ahdiga soo qaatay waxaan ku gaadhnay guul aan ilaahay ugu mahadinayno maalinkaan heshiiska gallay ee kitaabkaas ku qabannay kadib wiil lagama dhaawacmin wiilla lagama dhimanin weerar iyo cod soo jeedana ugama baqine ilaahay tii uu ku khatimay allah inooga dhigo ujeeddada koowaad ee shirkan maanta aan isku qabannay waxay tahay markii hore 24 baan isku dhaaranne maanta gariya jaarso haween dhalinyar maamul in badan baad ku joogtaane ahdigii aan qaadanay 24-keenaasi ma nala qaadateen ma ilaahayna isku og haddaba ahdi waan ku hel jirnaa waan guulaysanaynaa waa walaalkayo shalay haddaan isdili jirnay marti ahaan baan ku soo dhaweynay intaan keli karna waan soo dhaweynay gacan dambe oon isku qaadno xumo dambe oon isku qaadno ilaahay waan ka magan gallay haddeed waxay noo ballana in yari dhegaysta haddaan wiilasheenna rasaasta ay ku dagaalami jireen aan u keeni jirnay haddii gaadiid ay ku dumadaan aan u keeni jirnay waxaa naga ballana inaan cadafaydiin doonno inaan shinni beerta miyaasiyaan la joogaa waa xilligii shinnida inaan shinnidina gooni lahayn keenno haddii aan gurmad gaadhin lagu dagaalgalaan keeni jiray waxaa haddeed labada dhinacban waajibku laga saaran yahay inaan cagafyo beeraha lagu qabaydiin doono shinniyo la beerto inaan keenno waxa weeye dhibaatadii iyo imtixaankaa soo maray ilaahay intaa layga ekaysiiyo beddelkeeda oo khayr qaba oo dhimcadiisa leh kalgacaylkiisa leh isku duumiya walaaltinimo leh ilaahayna siiyo wuna siiye ilaahay loo taam yeelo dadkeenna allah inoo mideeyo dadka iyo deegaankaba allah inoo mideeyo nabadii aan weynay ee naga laalay tutaana oo macaan allah inoo keeno dhanka kale qaar ka mida waxgaradka iyo dhalinyarada ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada beelood cabdiqaadir ismaaciil iyo faafahinta warkana mar kale haynu eegno heshiiskan taariikhiga ee ka dhashay labada dhinac waxaa sidoo kale shucuur gaara u yeelaya sida dadkan wada dhashay ay isku gacan qaadayeen maadaama uu muddo colaad siyaasadeed dhex taallay oo ay isku abaarsadeen iyo dhalinyarada sida kalgacalka leh isku gacan qaadaysa nabadda maanta dhacday waan soo dhaweynaynaa labada beelood ee walaalaha beesha gariga iyo jaarsada nabadani nabadii hore hadda ka hor soo dhici jiray way ka dugan tahay sida aan qabo waayo isbeddelka Itoobiya hadda inaan la jaan qaadno weeyaan isbeddelka ka dhacay Itoobiya annaguna kaamid lamida waa inaan la jaan qaadno sidaa darteed waxaan leenahay waan soo dhaweynaynaa cidda inay ka hor timaado isku daydana gacan bira in lagu qabto ayaan kaga jawaabaynaa annagoo ah dhalinyartii jinacsani oo maanta u joogna heshiiskan marar ka dhacay oo aad iyo aad weliban u faraxsan farxadaas oo ah dad walaalo ah oo haddana islaam oo kelimada laa ilaaha illallah xitaa walaalku ah oo maanta xaalado fara badan oo waxa jiray u joognay geeriyo fara badan xanuuno fara badan oo na soo gaaray dhaqaale burbur badan oo na soo gaaray dad badan oo xitaa walaalay hooyo wada dhashay oo kala irdhoobay oo ku kala tagay sababaha arrinkan cid ay faa'iido haba yaraatay ugu jirin ayna jirin cid faa'iido kala kulantayna waxaan dhacay ayna jirin maanta waa maalin aad u faraxsanahay heshiisyo hore way jireen ama dagaalo hore labadan beelood walaalaha dhex mari jiray waqtiga anagu waqtiga dagaalada ay dabadeed iyo wax ay ka saaban dhalanay maanta u joognaas laakiin sheekaynu waan jirtaa ta koor labadii beelood walaalaha gariya jaarsa heshiinay maanta alxamdulillah war joognaa dhalinyartii haddii aan nahay anagu aad u faraxsan dhalinyartii gariya jaarsa wayaan maanta duleedka ku kulanay muddo 2 sano ku dhawaanaan sarkin dadkii aan dariska ahayn jaarka ahayn wada cunay ilmaabtiga ahayn mataqaana walaalaha ahayn quraan iskool dhammaan soo wada dhiganay waa maalin aad u soo dhaweynayno kulanka iyo isku imaatinka iyaga
annagoo sii rajaynayna nabad dambe iyo isku waarid dambe maanta laga bilaabo isdhex socodkayaga meel walba joogno inaan isdhex soconno dhalinyartan walaalaha in annagoo aad iskugu ooman ilaahaygu nagu simaa mahadle heshiiska nabadeed ee ka dhashay labada dhinac ayaa waxaa salka u dhigay duqeyda labada dhinac iyagoo kaashanaya laamaha nabadgelyada iyo weliba amni sugidda waxaan qaadanay 24 oday gari iyo jaartaan soo qaadnay nabadgelyo anagoo dhan walba eegnay garannay inay nabadda gariga jaarso u fiican tahay oo wixii dadku ku bannaanaya ay tahay siyaasad boornu ka jixin dagaalku gabadhuuna ka jixin wiila dila wuuna ka jixin beer la qoda wuuna ka jixin ceel la cabayo wuu ka jixin caws wuu ka jixin siyaasad baa keentay marka siyaasaddii 24 waxaan garannay inaan siyaasad dambe aan ka madax bannaanahay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa nabadda gari iyo jaarso midnimada gari iyo jaarso annaga oo afkeliya ku wada hadlayna ka gari waa jaarso ka jaarso waa gari jinacsani waa tulli waa jinacsani yacni waxaan kala leenahay ayna jirin ururka maanta halkaa la iskugu yimiday guushii halkaa ka keenay bay ka dhalatay waxa weeyaan dib wixii annaga na gaadhay dib doqonnimo bay na soo gaadhay tii dib ugu noqon mayno waxyeellada tii naga gaadhay waxaan dib ugu noqonayna ma annagu waxaan hayaraha wax soo saar yaa warshadaha waddankaan ahayd etoobiya ilaa soomaaliya warshado u ahayd warshadaha iyagii dee siyaasad baa burburisay siyaasad markaa nagama imade waddankeena dhexdeeda ma naga yimaado uma nagaga timid taabaa annaga siyaasaddeedii burburisay 5 sanood kama kabsanayn beera aan qodanay way baabeen wixii lagu qoray wuu baabaa guryaha iyagu way baabeen hadda waxa ay tuli meesha adduunka oo dhan meesha meel kasta wax looga soo doontaa maantana waxba maaha waxa weeye heshiiskan waxaan annagu 24 tiyaan halkaas soo galnay waxaan doonaynaa weliba inaan ka marro dhalno oo guul ka gaadhno oo wax soo saarkii soo celino oo nabaddii soo celino oo wixii na gaadhaba ku ilowno wixii naga dhintay inaan ku ilowno taana inaan guul ka dhalino inaan gamcahays haysanno inaan kan waa ree hebel dambena laga arag intayadii halkaa tagtay kitaab qur'aan aan ku dhaaranno inaan ka gerino inaan ka jaarsaya inaan ka jaarsano inaan ka geriya kitaab qur'aan aan ku dhaaranno 24 halkaa tagtay tiibaan halkan keennay tiibaa siyaanaa weli mudane cabdilaahi maxamed cabdi ogaan ku-xigeenka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowlad deegaanka soomaalida oo madashaasi taariikhiga ah ka hadlay ayaa uga mahad celiyey duqeyda dhaqanka ee labada dhinac doorka ay ka ciyaareen isku soo dhoweynta dadkan walaalaha islamarkaasna guul taariikhiga ka soo hooyey in nabad waarta dhexdooda ay ka dhalato soomaalida waxa ay ku maamaadaa colaadda wiilba ku dhinta ee wiil kuma dhasha hadda colaadani dadun baa inagaga baaba'ay hanti baa inagaga baaba'day dad baa ku kala dhintay wuxuun baa ku kala fogaaday wax faa'iidaa oo ciddii horisay ay ka gaadhay ama ay ku faani kartaay ma jirto for example haddii maanta geri la dhammeeyo jaarsa wax faa'iidaa uma ah hadduu geri jaarsa dhammeeyana wax faa'iidaa oo uu ka helayaa ma jirto wuxuu waayayaa walaalkiisi uu garabsanayey walaalkiisi beerta la qodan lahaa walaalkiisi uu diliga ka soo qaadan lahaa walaalkiisi uu xoogga uu ka dayan lahaa unbuu waayayaa cid haddii cidda kale ay dhammaysto guul ku sheegan kartaa ma jirto waa hoog iyo halaag marka ay sidaa tahay annagu ka deegaan ahaan odayaashu waxay unkami karaan oo ay hirgelin karaan nabadda ayay dhammaystiri karaan iyaga ayaa aabbayaashii dalka ah iyaga ayaa aabbihii nabadda ah iyaga ayaa aabbihii samaanta noqon kara annagu ka dowlad ahaan waan saboorti garayn karraa waan taageeri karraa waan wixii ay u baahdaan baan u soo dhoweyn karraa laakiin waa inay guntadaan odayaasha deegaanka labada beelood ayay ka go-an tahay nabaddu iyo aas-aaskeeda nabadda ayaana gogol lagu seexdo ugu muhiimsan oo aas-aas u ah sidaa darteed nabadda heerka aynu soo gaarsiinay maanta iyadoo ciidamada qaranka bariga hareergiina ay aad inogala shaqeeyeen innagu lafteenna aynu ku soo dadaalnay intaasoo goobood intaasoo gobyood intaasoo ballamood aynu maray maanta mar haddii aynu meeshii xeerka geliya jaarso lagu aasaasay nabadii dib uga soo bilownay waxaan idinku adkaynaynaa
oon idinku celcelinaynaa in nabadda halkii aad ka sii wadaan mid dambe oo inagaga dhinta ayna dhicin hanti dambe oo inagaga burburtana ayna dhicin cid lagu eedeeyaana ayna dhicin maanta hal qoys ha warramiyo reerkii hal qoys dantii ummadda ha wado hal qoys danta ummadda iyo nabadooda ha sugo geesta kale hoggaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda ee dowlad deegaanka Oromada Brigadier General Kamal Galchu oo madashaas isaguna ka hadlaya hoosta ka xariiqay in taageero iyo gacan ay ka siinayaan duqeyda dhaqanka ee labada dhinac kaalinta libaax ay ka geysteen nabadan is-afiskan iyo jacaylkan ka dhaxdhashay labada dhinac ee gari iyo jaarsada wuxuu bulshada ugu baaqay inay ka digtoonaadaan iskana ilaaliyaan shakhsiyaadka iyagoo gabaadka ka dhiganaya bulshada dhexdeeda isla markaasna isku dhacyo ka dhex abuuraya bulshada si ay u meel marsadaan danahooda gaarka ah waa tahay warkaan idinka hayno dalka wasaaradda nabadgelyada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegtay inay wadaan dagaallo wax lagaga qabanayo rabshadihii ka dhacay deegaanada dalka waxay noo soo diyaariyay warkan Cabdullaahi Qaliinle waxay noo soo jeedinayaa guuleed aadan hirgelinta horumar kasta oo dalku hiigsanaya waxa horseed wax nabad maadaama ay nabad u tahay aasaaska horumar kasta oo lagu hamiyo inkastoo ay hadaba dalka Itoobiya ka jirto nabadgelyo taam ah haddana waxa mararka qaar kood dhaca qulqulatooyin dhaxmar bulshada walaalaha ee wada degan ama badariska ee xuduudaha wadaaga si arintaasi looga hortagna waa in ahmiyad gaar ah la siiyo howlaha nabadda waqti xaadirkana waxa guud ahaan dalka Itoobiya ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo wax laga qabanayo rabshadaha mararka qaar kood ka dhaca goobo kamid ah deegaanada dalka hadaba wasaaradda howlaha nabadgelyada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya oo baryahan dambe ku howlaneed wax ka qabashada rabshadaha ka dhaca goobaha qaarkood ayaa guntiga u gaabsatay sidii loo xalin lahaa khilaafaadka ka jira goobaha qaarkood isla markaana looga hortagi lahaa rabshado dambe oo dhaca maray hadaba arintaasi ka hadashay Marwo Mufriyaad Kaamil oo ah wasiirka wasaaradda nabadgelyada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya ayaa sheegtay inay ka wasaaradahan ku howlan yihiin qaabkii loo xakameyn lahaa waxyaabaha horseedka u ah isku dhacyada ka dhaca goobaha qaarkood ee geysta khasaaraha nafka iyo maalkaba leh waxa kale oo ay sheegtay Marwo Mufriyaad Kaamil in howlgalkooda hadda socda dhanka nabadgelyadu yahay mid loo adeegsanayo aaladaha casriga laguna rajayn yahay in muddo gaaban gudahood lagu soo afjari doono qulqulutooyinka jira isla markaasna wixii hadda ka dambeeya la isku dayi doono in la xakameeyo dhibaatooyinkii dhici lahaa ee geysan lahaa khasaaraha naf iyo maalkaba leh maadaama uu qalabkan yahay mid casri oo hawl fududeynaya ka hortaga rabshadihii dhici lahaa geesta kale waxay wasaaradda nabadgelyada ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya sheegtay inay ku howlan yihiin sidii loo ballaarin lahaa kulamada kala duwan ee lala yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama ay lagama maarmaan tahay inay bulshadu ka qayb qaadato xalinta khilaafaadka ka jira goobihii ay rabshaduhu ka dhaceen loona baahan yahay in xoog la saaro wax ka qabashada arrimaha la xidhiidha aragti xumada ee markasta keenaya isku dhaca qoomiyadaha iyo shucuubaha walaalaha ah ee uu ka dhaxeeyo xidhiidhka soo jireenka ah ee guyaalka tirsaday daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan intaas waxa inoogu dhan war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee deegaanka Soomaalida warkayga waxaad la socodsiinaya anigu waa Faarax Cabdi ani asxaabtiga la qayb qaatay tabinta warkan intaan dib ugu kulmi doono xilli tabinteena dambe ee wareed anigoo isku duuban waxaan idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh